السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. wanaagsan dawadayaal meel kasta oo dunida nagala socotaan waa habeenimo axada bisha abriil ay sii galay 13 sanada 2025 qodobada barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa caawa si toos ah ula hadlay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump. Waxa dhinaca kale madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro uu wareysi xasaasi ah siiyay shabakada laga leeyahay wadanka Mareykanka ee New York Times oo bariyaha markaas si aad uga hadlaysa arrinka la xiriira markaas Soomaaliland iyo aqoonsigeeda. haddii waxaan eegi doonaa markaasi wareysiga uu siiyay madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro shabakadaasi ama warbaahintaasi New York Times oo waxyaabo badan markaas uu kaga hadlay iyadoo wuxuu ku soo beegmayaa ay Soomaaliland sheegtay in duulaan xoogan ay ku soo qaaday markaasi wadanka Soomaaliya. haddaba arrimo badan ayuu markaasi ka hadlay madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro. waxaan eegi doonaa sidoo kale hadalka tooska ah ee uu la hadlay markaasi madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump. dhinaca kale magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa kulan xasaasi ah markaasi uu halkaasi ku dhaxmaray rajaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo odayaasha dhaqanka ee magaalada Laascaanood iyadoo la tilmaamay in wixii laga filayay markaasi Xamse Cabdi Barre inaan laga helin oo guud ahaanba ay u muuqato markaasi in dhinaca kale wax walba isku rogeen iyadoo Xasan Sheekh Maxamuud laftiisa markaasi uu sheegay maanta in guud ahaanba sababta ugu weyn ee uu halkaasi u tagay Xamse Cabdi Barre mar wax laga weydiiyay soo ku sugan wadanka Turkiga waxa uu sheegay in ay tahay markaasi in midnimo iyo nabad uu halkaasi u tagay balse ayna jirin markaasi arrinka la xiriira in guud ahaanba Soomaaliland laga goyn doono deegaanadaasi Sool iyo markaasi gobolka Buhoole. haddii waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay markaasi la xiriira sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka hadlay aqoonsiga Soomaaliland iyo sidoo kale Falastiiniyiinta loo soo raray dhanka Soomaaliland iyo Mareykanka xilligan u sii jeeda dhanka Soomaaliland ee aqoonsanaya iyo in Soomaaliland ay ku bedelanayso markaasi guud ahaanba aqoonsi in ay Falastiiniyiinta loo soo raro deegaanadooda. arrimo badan ayaa markaasi ka hadlay Xasan Sheekh Maxamuud oo isaguna markaasi lagu qabtay wadanka Turkiga waxyaabo badan laga weydiiyay Soomaaliland. waxaa sidoo kale loo sheegay in Soomaaliland ay tahay meel markaasi u muuqata inay aad uga horeyso Soomaaliya inteeda kale oo guud ahaan koonfurta Soomaaliya markaasi iyo Soomaaliland marka la soo bardhigo inay tahay Soomaaliland meel aad markaasi u horumarsan. haddaba waxaa la weydiiyay maxay tahay sababta ay dowladda Soomaaliya markaasi xilligan u daba ordaysa ama u daba taagan tahay guud ahaanba Soomaaliland. arrimahaasi wuxuu kaga jawaabay sidoo kale aan soo qaadan doonaa qodobadas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ee barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada. aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya dhanka Soomaaliland waxay sheegayaan madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ayaa si toos ah ula hadlay wadanka Mareykanka. madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro waxa uu wareysi dheer siiyay markaasi warbaahinta New York Times oo bariyaha markaa iyagu aad u qorayay arrinka la xiriira Soomaaliland iyo aqoonsi caalami ah oo ay ka hesho wadanka Mareykanka. madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ayaa waxa wareysigiisa markaasi uu ka hadlay dhinacyo badan waxaana kamid ahaa madaxweynaha Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxa uu wareysi qoto dheer markaasi oo dhinacyo badan taabanaya uu siiyay wargeyska caanka ee The New York Times waxaana uu soo bandhigay guulaha ay gaadhay Soomaaliland xagga horumarka xagga amniga xag bulsho iyo waliba xag dimuqraadiyadeedba. sidoo kale madaxweynuhu waxa uu wareysiga ku iftiimiyay in dalka Soomaaliland uu yahay dal ku yaala goob istiraatiiji ah dal hodan ah oo leh kheyraad fara badan oo kala duwan oo dabiici ah isla markaana guud ahaanba Soomaaliland ay sameyn karto markaasi wax walba oo shuruud ah oo looga baahdo. waxa uu tilmaamay markaasi wareysiga uu siiyay shabakadaasi in guud ahaanba nabadgelyada dowladnimada ka jirta Soomaaliland ay tahay mid qaangaadhay oo markaasi aad u adkaysatay isagoo xusay in jamhuuriyadda Soomaaliland ay dadaal dheer ugu jirto in Mareykanka aqoonsado madaxbannaanida Soomaaliland isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dowladda Mareykanka u soo bandhigay inay si buuxda u isticmaali karaan saldhig military iyo madaarka caalamiga ah ee Berbera ee ku yaala goob istiraatiiji ah oo mudnaan weyn u leh amniga badda cas iyo gacanka cadmeed iyo waliba socodka ganacsiga caalamka. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxa kale oo wareysiga uu ku sheegay in isaga iyo waliba dadkiisuba ay aaminsan yihiin in marka la eego fahamka sare ee uu madaxweyne Donald Trump u leeyahay fursadaha xagga ganacsiga caalamka ay dhalin doonto in uu aqoonsado jamhuuriyadda Soomaaliland. wargeyska caanka ah ee The New York Times waxa uu intaasi ku daray in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu booqan doono Washington DC bilaha fooday nagu soo haya. sidoo kale wareysiga markaasi inta uu socday oo wargeyskaasi siinay madaxweynaha ayaa wargeysku waxa uu xusay in madaxweynaha Soomaaliland uu Mareykanka u soo bandhigi doono heshiis ku wajahan Soomaaliland
inuu Mareykanku uu usoo bandhigo heshiis ku wajahan iskaashi ganacsi, mid amni, mid istiraatiijiyadeed iyo waliba sidii looga wada faa'iideysan lahaa xeebta Somaliland ee markaasi dhererkeedu uu ka badan yahay 500 oo mayl. haddaba arrimaha markaasi guud ahaan kala duwan ayaa waxaa warbaahinta The New York Times ay ku baahisay guud ahaanba warbaahinteeda kala duwan, taasoo u muuqata in Somaliland iyo Mareykanku xilligan si toos ah iskula jaan qaadayaan. madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro waxaa lagu xasuumay wadanka markaasi Mareykanka, waxaana uu la kulmi doonaa madax sare oo uu ku jiro madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump sida markaasi la qorsheeyay. ilaa iyo haatan waxaa laga shaqeynayaa markaasi xasuumada madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro uu ku tagi doono wadankaasi Mareykanka. cabsi weyn ayaa laga qabaa haddaba marka uu tago madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro wadanka Mareykanka inuu kasoo noqon dooninba isagoo wado aqoonsi mooyaane inaanu markaasi wadankaasi kasoo laaban doonin, taasoo la tilmaamay in ay ku noqotay wadna qabad wadanka Soomaaliya. gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo markaasi xilligan waali ku dhow isagoo markaasi ku sugan wadanka Mareykanka ayaa wax laga weydiiyay isagoo ku sugan wadanka Turkiga aan yiraahdo madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wax laga weydiiyay arrinta la xiriirta Somaliland, booqashada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre Laascaanood, arrinka la xiriirta in Falastiiniyiinta ay Somaliland ogolaatay in dhinacooda loo soo raro aqoonsiga ay ku bedelanayso, iyo in markaas Somaliland iyo Soomaaliya ay kala yihiin cirka iyo dhulka oo aad markaasi xagga horumarka looga horeeyo. arrimahan oo dhan markaasi ayuu ka jawaabay. haddii aan ugu horeyna dhanka markaasi booqashada magaalada Laascaanood ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya halkaasi ku tagay, wuxuu ku tilmaamay inay tahay inuu isagu diray oo ra'iisul wasaaraha uu u diray markaasi ama guud ahaanba uu u diray in halkaasi uu nabadgelyo iyo xasilooni ka abuuro, isla markaana dib u heshiisiin rasmi ah markaasi laga sameeyo deegaanadaasi. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka fogaaday inuu diyaar u yahay in guud ahaanba ay u aqoonsadaan maamulka halkaasi ka jira mid la mid ah maamulada markaasi ka jira Soomaaliya ee 5 maamul goboleed, iyo sidoo kale in uu guud ahaanba marka lagu daro magaalada Muqdisho. marka waxa uu tilmaamay in guud ahaanba ay 5 ka dhigi doonaan maamul goboleedyada Soomaaliya inay tahay wax xilligan aan loo diyaarsanayn oo aan markaasi diyaar loo ahayn. si kasta oo xaalku ahaadaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu tilmaamay in ujeedka kaliya halkaasi loogu diray ay tahay dib u heshiisiin iyo in bulshada halkaasi degan markaasi oo colaado fara badan ay ku soo laabteen in guud ahaanba ay dowladda federaalka ee Soomaaliya doorkeeda ka qaadato in dagaal dambe uuna ka dhicin deegaanadaasi. haddaba markaasi waxaa la tilmaamay in tani ay muujinayso in ujeedka weyn ee la filayay inuu ka dambeeyo markaasi guud ahaanba soo diritaanka ra'iisul wasaare Xamse in haatan banaanka imaadeen. oo ra'iisul wasaare Xamse ma aha markaasi nin keligii go'aan qaadan karaya, waa nin markaasi isagu guud ahaanba madaxweyne leh oo laga sareeyo. go'aankan waxaa iskala xasan sheekh maxamuud. haddaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa la tilmaamay in guud ahaanba uunan diyaar u ahayn in markaasi maamul goboleed lixaad lagu soo daro markaasi guud ahaan maamul goboleedyada xilligan Soomaaliya ka jira oo kala markaasi Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo waliba Galmudug iyo Hirshabelle. haddaba waxaa la tilmaamay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrinta ugu weyn ee uu soo diray markii horeba la tuhunsanaa inuu haatan shaaca ka qaaday oo ay tahay kaliya inuu booqdo Xamse Cabdi Barre deegaanadaasi oo guud ahaanba uu dib u heshiisiintaasi ka sameeyo, khaatumana lagu qanciyo in ay maxaabiistana lagu wareejiyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, sidoo kalena ay guud ahaanba markaasi mashaariic yaryar loo soo daayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. mashaariicahaasi marka laga wada faa'iideysto kadibna ay guud ahaan magaalada Laascaanood ay kasii mid ahaato Somaliland sida markaasi wararku tilmaamayaan. dib u heshiisiinta waxaa markaasi ku jira in Somaliland iyo la wada hadalsiiyay markaasi maamulka magaalada Laascaanood ka jira haddii ay markaasi doortaan inay dib ugu noqdaan oo la isfahmana dib loogu celiyo markaasi guud ahaan Somaliland. xasan sheekh maxamuud waxa uu aad u doorbidayaa la leeyahay in guud ahaanba ay Somaliland dib ugu biiraan markaasi magaalada Laascaanood iyo maamulka halkaasi ka jira. waa sida xogaha hoose ay tilmaamayaan. sidoo kalena uu ka dhawaajiyay xasan sheekh maxamuud maanta banaanka uu keenayba oo wareysiga uu siiyay markaasi warbaahinta wadanka Turkiga oo wareysigaasi ka qaaday. dhinaca kale waxa laga weydiiyay Somaliland iyo guud ahaanba in haatan ay wadanka Mareykanku aad isugu sii dhawaanayaan oo Mareykanku uu qarka u saaray inuu aqoonsado isagoo kaga bedelanaya in guud ahaan bariga dhexe xaaladaha ka jira uu doonayo inuu ku xalliyo markaasi Somaliland aqoonsigeeda. xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay in arrinkaasi uu yahay mid sida uu rajeynayo aanan dhici doonin, balse waxa uu qiray markaasi in arrinkaasi uu jiro isla markaana cabsi weyn uu ku hayo dowladda federaalka ee Soomaaliya marka la eego in Somaliland ay rabto inay xalliso mid ka mid ah baahiyaha uu qabo wadanka Mareykanka, waliba kuwooda ugu waaweyn
ayuu Somaliland doonaya inuu ku xalliyo taasoo markaasi la tilmaamay inay tahay wax suurtagal ah 80%. haddaba iyadoo taasi jirta ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in Somaliland ay tahay bogcad muhiim u ah Soomaaliya oo aanay marnaba markaasi ka maarmi doonin inay markaas Soomaaliya inteeda kale ka go'do. waxaana uu sheegay isagoo markaasi aad isugu dhaxyacsan in guud ahaanba aanay Somaliland marka la eego xilligan tallaabooyinka ay qaadayso aynan filaynin inay u goyn doonaan aqoonsi caalami ah oo dunida ay ka hesho. waxa laga weydiiyay Somaliland markaasi tallaabooyinka ay qaaday tan iyo burburkii Soomaaliya iyo dowlad la'aanteedii waxa ay u goyn karayaan inay aqoonsi caalami ah ka hesho dunida. waxa uu sheegay in Somaliland ay qaaday tallaabooyin fara badan oo aad u wanaagsan balse ay guud ahaanba filayaan inaysan u goyn doonin markaasi aqoonsi caalami ah oo ay dunida ka hesho. waa isagoo markaas sida uu guud ahaanba jecel yahay balse Somaliland caalamka oo dhan markaasi ayaa xilligan qiraya in guud ahaanba tallaabooyinka ay samaysay iyo horumarka ay qaadayba inuu yahay wax weyn uga goyn karaya caalamka haba ugu weynaado markaasi aqoonsi caalami ah. dhinaca kale magaalada Laascaanood haddii aan eegno caawa waxa ka socda wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maanta soo gaadhay ayaa caawa kulamo kala duwan la qaatay odayaasha dhaqanka ee magaalada Laascaanood. waxa uu kala hadlay markaasi arrimo la xiriira guud ahaanba xilligan xaaladda ka jirta deegaanadaasi weli qodobkii ay filayeen dadka reer markaasi Laascaanood ma taabanin wasaaraha Soomaaliya. waana arrimo markaasi guud ahaanba banaanka keenaya ama muujinaya in waxa markaasi ay ka filayeen in guud ahaanba wasaare Xamse markaasi uunan meesha ugu haynin dadka reer markaasi Laascaanood. kulanka ayaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa midnimada iyo geedi socodka nabadda, dib u heshiisiinta iyo xasiloonida dalka isagoo ka dhageystay markaasi talooyin dhaxalgal ah oo ku aadan dib u dhiska dalka iyo sidii deegaanada markaasi Laascaanood iyo agagaarkeeda looga hirgelin lahaa hay'adaha dowladda ee bulshada soo gaarsiiyay markaasi adeegyada muhiimka ah ay u baahan yihiin. mudane Xamse Cabdi Barre ayaa uga mahadceliyay isimada doorkooda muhiimka ah ee ku aadan nabadeynta midnimada waxaana uu ku adkeeyay sida xukuumaddiisu mudnaan gaar ah ay u siinayso xoojinta hay'adaha dowladda, ilaalinta markaasi guud ahaanba xasiloonida iyo nabadda. waxaa la tilmaamay in dowladda Soomaaliya lagu cadaadiyay oo cadaadis waliba xoogan lagu saaray beesha caalamkana ay qayb ka tahay in guud ahaanba ay deegaanadaasi colaadda faraha badan kusoo noqnoqotay in doorkooda ay ka qaataan oo halkaasi aanay indhaha markaasi ama dhegaha ka furaysanin waxa halkaasi ka jira. warku waxay tilmaamayaan in guud ahaanba dowladda Soomaaliya ay cadaadiskan dartiis markaasi u imaatay magaalada Laascaanood ee ayna markaasi u imaanin dan guud ahaanba iyagu inay soo maageen ama ay wax u hayaan gooniya markaasi oo dadkaasi ay ugu talagaleen. waxaa la tilmaamay in ay beesha caalamku aragtay dagaaladii xoogganaa ee ka dhacay deegaanadaasi ilaa iyo haatan xiisada ka taagan Somaliland oo dacwado kala duwan gudbisay sidoo kale Somaliland oo dalbatay in markaasi guud ahaanba deegaanadaasi khilaafka iyo dhibaatada ka taagan ay mar walba ku soo celcelinayeen sidii loo soo afjari lahaa. haddaba dowladda Soomaaliya la tilmaamay markaasi in dhankooda la weydiiyay sababta ay uga aaminsan yihiin deegaanadaasi ee aanay markaasi wax tallaabo u qaadaynin waana sababta keentay ayaa la leeyahay in guud ahaanba dowladda Soomaaliya xilligan ay soo kacdo oo halkaasi ay imaato balse ma jiro waxyaabo markaasi ay dadka niyadda gashteen ee ah in guud ahaanba ay dowladda federaalka ee Soomaaliya u wado maamul ka mid ah maamulada Soomaaliya inay siin doonto ama maamul goboleed rasmi ah markaasi deegaanadaasi laga dhigi doono. akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.